I think it's a great gesture from Qatar. I appreciate it very much. waxaa si weyn loo hadal hayaa warar la xiriira qorshe ay dawladda Qatar ku doonayso inay madaxweyne Donald Trump ku siiso .747-8 waxaana qiimaheeda lagu qiyaasaa $400 milyan. diyaaraddan ayaa la sheegayaa in loo isticmaali doono si ku meel gaar ah isla markaana ay bedeli doonto Air Force One gaar ahaan inta lagu guda jiro muddo xileedka madaxweyne Trump kadibna waxaa loo wareejin doonaa maktabadda Trump. madaxweynaha Mareykanka ayaa xaqiijiyay qorshahan isagoo ku tilmaamay hadiyad bilaash ah oo daahfuran isagoona sidoo kale muujiyay niyad jabkiisa ku aadan dib u dhaca shirkadda Boeing ee qaabilsan keenista diyaaradaha cusub ee Air Force One si loo bedelo kuwa cimriga ah ee madaxweynaha Mareykanku ku safro. hadiyadda Qatar waxay dhalisay muran xoogan wuxuuna Trump dhaleeceyn kala kulmayaa siyaasiyiin iyo khubaro sharci kuwaasoo sheegaya inay hadiyaddaasi ay noqon karto mid ka hor imaanaysa qodobka Amendments Clause oo ah qodob ku jira dastuurka Mareykanka oo mamnuucaya in madaxda dawladda ay qaataan hadiyado abaalmarino ama mushaar dheeraad ah oo ka yimaada dawladda shisheeye iyagoo aan ogolaansho ka helin Congress-ka. waa qodob dastuuri ah oo loogu talagalay inuu ka hortago musuqmaasuqa. xukuumadda Trump waxay sheegtay in hadiyadda loo aqbalayo si waafaqsan sharciga maadaama inta uusan madaxweynuhu ku safrin loo wareejin doono wasaaradda difaaca. si kastaba ha ahaatee arrintan weli waa mid si weyn la isugu hayo muran badanna dhalisay. diyaaradda la sheegay in Qatar ay doonayso inay siiso Donald Trump waa nuuca .747-8 waana mid ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn uguna raaxada badan ee laga isticmaalo dunida. waxaa la sheegaa in diyaaraddan horey uga tirsaneyd diyaaradaha gaarka ah ee qoyska boqortooyada Qatar gaar ahaan Qatar Amiri Flight oo ah laan qaas ah oo u adeegta amiirka iyo madaxda kale ee Qatar. waa mid luxury ah oo leh qolal la seexdo, xafiisyo shaqo oo gaar ah, qolka shirarka iyo qolka nasashada ee VIP-ga. inkastoo wararka ku saabsan hadiyadda ay bixinayso Qatar ay daabacayaan qaar ka mid ah warbaahinta waaweyn, haddana dawladda Qatar si rasmi ah uma aysan xaqiijin inay diyaarad siinayso Donald Trump. laakiin madaxweynaha Mareykanka ayaa si cad u sheegay inay nacasnimo tahay haddii uu diido hadiyad intaas la eg oo bilaash ah. I would never be one to turn down that kind of an offer. I mean, I could be a stupid person say no, we don't want a free, very expensive airplane. marka laga yimaado qodobka dastuuriga ah ee Amendments Clause waxaa jira dhowr sababood oo kale oo ay mucaaradka Mareykanka gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga uga soo horjeedaan diyaaradda la sheegay in Trump la siinayo. waxayna arrintan u arkaan mid keeni karta saameyn siyaasadeed oo shisheeye. mucaaradku waxay sheegayaan haddii Trump uu aqbalo diyaarad sidan u qaali ah in ay Qatar heli karto saameyn toos ah oo ay ku yeelato go'aanada siyaasadeed ee Trump. hadiyad sidan u weyn waa mid u muuqan karta in Trump uu xafiiska madaxweynaha uga faa'iideysanayo dana shakhsiyadeed iyo inay noqon karto fariin qaldan oo loo diro madaxda kale ee caalamka oo waxay tilmaamayaan in arrinkan uu noqon karo tusaale halis ah oo madaxda kale ee caalamka ku dhiirigeliya in ay isku dayaan inay iibsadaan madaxda Mareykanka. waxaa jira qorshe dawladeed oo loogu talagalay in lagu soo saaro diyaarado cusub oo Air Force One ah oo ayna dhisayso shirkadda Boeing. laakiin Trump ayaa ku eedeeyay Boeing in ay ka gaabisay arrinkaas sidaas daraaddeedna uu diyaar u yahay inuu gudoomo diyaaradda raaxa ee sida freega ah lagu siinayo. Air Force One ma ahan hal diyaarad ee waa magac loo bixiyo diyaarad kasta oo madaxweynaha Mareykanku fuulo oo ciidanka cirka hoos tagta. diyaarad walba oo madaxweynuhu ku safrayo oo ciidanka cirka ka tirsan waxay si rasmi ah u noqotaa Air Force One si ay u yeelato sumad gaar ah oo lagu garto. madaxweynaha markuu fuulo diyaarad helicopter ah waxaa loogu yeeraa Marine One sababtuna waa inay maamulka hayaan ciidamada badda. marka laga hadlayo Air Force One waxaa loola jeedaa laba diyaaradood oo ah nuuca .747-200P waxaana socdo qorshe lagu doonayo in lagu soo saaro laba diyaaradood oo cusub oo ah VC-25P oo ah .747-8 waxaana la filayaa inay bedelaan kuwii hore. waxaa jiraan diyaarado kale oo madaxweynaha Mareykanku isticmaalo sida C-32 Alpha oo ah diyaarad yar oo nuuca .757 ah waxaana inta badan loo isticmaalaa safarada gudaha. marka uu madaxweyne ku-xigeenka ku safrayana waxaa loogu yeeraa Air Force Two. Franklin D. Roosevelt ayaa ah madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee isticmaala diyaarad rasmi ah sanadkii 1943 waxayna ahayd nuuca Douglas C-54 Skymaster oo loo bixiyay magaca Secret Cow.
Franklin D. Roosevelt wuxuu ahaa naafo wuxuuna la noolaa cudurka polio taasoo ka dhigtay mid aan si sahlan u socon karin. Diyaaraddii ugu horeysay ee rasmi ah oo madaxweyne Mareykan loogu talagalay inuu ku safro waxay ahayd mid leh sariir iyo lefti ama wiish qaada Franklin maadaama uusan awoodin fuulidda jaranjarada ama salaanka diyaaradda. waxaana la gelin jiray diyaaradda iyadoo la adeegsanayo lifti gaar ah oo hoos uga yaala diyaaradda. 1953 waxaa dhacay isbeddel weyn oo ku yimid magaca loogu yeerayo diyaaradda uu ku safrayo madaxweynaha Mareykanka. haddaba sanadkaas maxaa dhacay? 1953 madaxweynihii 34aad ee Mareykanka Dwight D. Eisenhower wuxuu ku safray diyaarad military ah oo hoos tagta ciidamada cirka waxayna sidatay oo lagu garanayay magaca Air Force 8610. isla waqtigaas waxaa hawada ku jirtay diyaarad kale oo caadi ah oo rakaab ah taasoo sidoo kalena sidatay nambarka 8610. diyaaradda rakaabka ahayd iyo midda uu madaxweynuhu saarnaa waxay isla galeen hal wado hawadeed waxayna halis ugu jireen labadooduba inay isku dhacaan. haddaba xarunta kontaroolka hawada waxay la hadlaysay midkood balse waa ay ku adkaatay inay kala garato midda madaxweynaha sida iyo midda caadiga ah ee rakaabka. dhacdadaas kadib militariga Mareykanka iyo maamulka duulista waxay ku heshiiyeen in mar kasta oo madaxweynuhu Mareykanka uu saaran yahay diyaarad military loo bixiyo looguna yeero magaca Air Force One, magac unique ah oo aysan diyaarad kale yeelan karin. halkaas ayuuna ka yimid magaca ay sidato diyaaradda madaxweynaha Mareykanka uu ku safro. shakhsiga madaxweyne ka noqda Mareykanka wuxuu ku safraa kaliya dhowr diyaaradood oo si gaar ah dib u habeen loogu sameeyay taxaddar amni oo sarana leh. diyaaradda uu madaxweynaha Mareykanka ku safro waxay leedahay qalab ka hortaga gantaalada iyo jabsiga elektarooniga waana mid leh difaac hawada sare ah. waxaa la sheegaa inay leedahay shabakad sir ah oo isgaarsiin ah si madaxweynuhu u sii wato shaqada marka uu duulimaadkiisa ku guda jiro. waxay leedahay awood ah in hawada iyadoo ku jirta in la siin karo shidaal haddii loo baahdo. sidoo kale waxaa laga helaa xafiisyo, qol jiif, qolka shirarka, cunto kariye iyo agab caafimaad oo isbitaalka la mid ah. diyaaraddan waxaa ku rakiban in ka badan 85 taleefan, fax iyo qalab military oo satellite ah. wuxuuna madaxweynaha ay sido uu xiriir la yeelan karaa Pentagon-ka Mareykanka. waxaa jiraan dhacdooyin taariikhi ah oo diyaaraddan la xiriira sida in mar gudaheeda lagu dhaxdhaariyay madaxweynaha Mareykanka. markii John Kennedy la dilay 1963 madaxweynihii bedelay waxaa lagu dhaariyay isagoo ku jira gudaha diyaaradda Air Force One. waxaa dhacda in mararka qaar uu madaxweynuhu ugu safro diyaaraddan si qarsoodi ah iyadoo waliba la bedelayo jadwalka safarka iyo magaca diyaaradda si aan loo ogaan. waxaa dhacda mararka qaar inay cilad qabsato sida dhacday 2006 markaas oo uu George W. Bush diyaaraddii siday ee ka leexatay wadadii loo qorsheeyay sababo la xiriiray qalab isgaarsiineed oo fashilmay. sidoo kale 2021 Biden oo mar safar ahaa ayaa la sheegay in diyaarad kale loo diyaariyay sababo la xiriiray cilad lagu arkay diyaaradda weyn. gaadiidka kale ee madaxweynaha Mareykanka waxaa ka mid ah gaariga loo yaqaano The Beast oo ah gaariga gaarka ah ee madaxweynaha wuxuuna alaaba qayb ka yahay safarka diyaaradda. aqalka cad wuxuu diyaaradaha Air Force One u arkaa kuwa duugoobay oo muddo shaqeynayay isla markaana ay habboon tahay in la bedelo. wuxuuna qorshuhu yahay in lagu bedelo 2 diyaarad oo cusub oo lagu darayo tiknoolajiyad cusub sida difaac laser ah, xiriir quantum ah iyo nidaam cusub oo dhanka tamarta ah. laakiin Trump wuxuu aaminsan yahay in qorshahaasi uu aad dib ugu dhacay isla markaana ay habboon tahay in uu qadar ka gudoomo diyaaradda luxury-ga ah ee qiimahaan ku fadhida $400 milyan.